gudoomiyaha baarlamaanka ahna kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa waxa uu shacabka reer Jowhar ugu baaqay inay ka shaqeeyaan caasimadda Hirshabelle si ay ula mid noqoto caasimadaha dhigooda. gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa waxa uu maamulka gobolka iyo kan degmada Jowhar ugu baaqay inay kaalin ka qaataan sidii ay ula mid noqon lahayd caasimadda Hirshabelle caasimadaha dhigeeda ah. gudoomiyaha baarlamaanka ahna kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa waxa uu ballan qaaday baarlamaanka Hirshabelle in uu kaalin buuxda uu ka qaadan doono dhisitaanka caasimadda Hirshabelle. waxa uuna sheegay in ay wanaagsanaato bilicda caasimadda Hirshabelle. waa kan gudoomiyaha baarlamaanka ahna kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed oo ka hadlaya arrimahaasi. shacabkan waxaan leeyahay maamulka la gacan siiya canshuuraadka ladinku adeega hala bixiyo hala garab istaaga maamulka Hirshabelle gaar ahaan caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle maanta aan ku sugnahay. caasimadaha kale iyo degmooyinka igana baaqaas mid lamid aan u direynaa. maamulku waxa kale rabaa in ay sameeyaan inay u ekeysiyaan caasimadda Hirshabelle caasimadaha dowlad goboleedka caasimad yani mid lamid ama ka wanaagsan. waxa la rabaa in magaalada loo sameeyo macnaha wadooyin meelaha laga soo gala in loo sameeyo muxuu ahay argooyin loo sameeyo in magaalada xayisiin badan loo sameeyo in muxuu ahay laga sameeyo muxuu ahay taalooyin oo yani ay madaxweynuhu ku sawiran yahay calanka Hirshabelle ku sawiran yahay waa in loo okeysiyaa yani caasimad Hirshabelle. waxaa dhacay waxaa la abaabulay xaafadaha boqolkiiba 40 kharashka waxaa bixinayay muxuu ahay xaafadda boqolkiiba 60 maamulka bixinay si ay jidid loo sameeyo laamiyaal. waxaa la sameyn karaa caasimadda dhammaanteed laamiyaal laga sameyn karaa. annagu waxaan ballan qaadaynaa Hirshabelle baarlamaanka iyo xukuumadda iswata waxaan qaban karnaa inaan idin la qaban. dowladda Soomaaliya iyadana waxaan ka codsanaynaa inay maamulkan maadaama maamul curdan uu yahay inay gacan siiyaan. iyaga dowladda dhexe ah iyaga dowladdan ay xubin ka tahay waxaan codsanaynaa inay gacan naga siiyaan inay baaqaasi hay'adaha caalamiga muxuu ahay ku dhiirigeliyaan. marka maamulka heer gobol heer degmo marka waxaan leeyahay waa inaad yani u guntataan in caasimadda Hirshabelle caasimadda rasmi ka dhigtaan. maxaa yeelay saan caasimaddu hadda adinkan waxa idinku tahay ceeb annaguna waxay nagu tahay muxuu ahay karaamad darro nagu. maxamed yaasiin mahdi maxamed deeq alfa warbaahinta Juba Shabelle News magaalada Jowhar.